warasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta maamulka gobolka ee degmada Ceergaab oo xilligaasi uu ka socday shir lagaga arrinsanayay qabanqaabada gudida xuska sanad guurada 26aad ee ka soo wareegtay 18 May 1991 markii Soomaaliland xornimadeeda la soo laabatay. warasaabku waxa uu shacabka iyo ganacsatada gobolka Sanaag ugu baaqay in loo diyaar garoobo sidii loo caawin lahaa dadka abaaraha ka soo kabanaya ee gobolka Sanaag maadaama xuskii 18 May loo bedelay gurmad saakulayn. warasaabka oo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladiisi kamid ahaa waxa uu daaran yahay u diyaar garowga 18 May oo 26 jirsatay sidaad ka warqabtaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu xuskii la xusi jiray 18 May uu ku bedelay lagu bedelo in qaaraan la ururiyo oo dadkii joogay dhulka ee xooluhu ay ka baxeen abaarta ballaaran ee ba'an ay ku habsatay si loogu taakuleeyo wixii la bixin jiray ee mataqaana ku bixi jiray maxaan ku idhaahdaay dabaaldega ama xuska sida awgeed maanta way bishu tahay 16 May 2017 waxaanu gobolka kaga dhawaaqaynaa inaynu u diyaar garowno gudiyadii qaranka ee jiray ee maxaan ku idhaahdaa heer gobol ee jiray ee guddiga taakulaynta abaaraha sida awgeed iyo gudiyo kale intuba inaynu heegan dhammaanteedba u noqono hadday tahay shaqaalaha dawladda wasaaradaha iyo maxaan ku idhaahdaay dhammaan bulshooyinka gobolka Sanaag waxa dhammaantoodba la farayaa degmooyinka tuulooyinka iyo xarunta caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergaabo in loo wada diyaar garoobo sidii dadka loo taakulayn lahaa dhaqaale fiicanna loogu ururin lahaa waxoolihii way dhamaadeen waa dhabroobkii waa da'ay hase yeeshee inta badan 80% waxay quutaan ma haystaan kaliya biyihii uun iibka ahaa ee mushkiladooda had iyo jeer laga warwareeyay ayaa waxay noqdeen biyo aanu helay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina soo waraabiyay dadaha iyo dhammaan shacabweynahaba waxa maanta la farayaa inaynu u diyaar garowno qaabkii aynu u wajihi lahayn dadka tabaaloobay ee dhibaatadu ay heshay ee xoolo ay ka baxeen iyada oo la mamnuucay in aan xuskii weynaa la samayn in shacairtii qarankana la muujiyo. Cabdiraxmaan Axmed Star TV magaalada Ceergaabo.